aliga ku xiran channelkeena soo dhawaada maanta waxaan idin hayaa sheeko qosol badan oo qosol badan sheekadana daa dhageysatiin waxaan filayaa inaa wax badan ku qosleysiin hadda aad waayeel u ahayn oo wiil yara oo indhool ah wiilkaasi wuxuu dhalay laba canug oo gabar iyo wiil waxa dhacday waxa uu imaaday wiilal xaafada kamida oo markaas la sheekeysan jiray asaga ma ogeyn laakiin waxa jira wiil gabadhiisa rabo in la siiyo ama rabo inuu guursado waa nin yar laakiin wuxuu dhalay laba caruurtiisa gabadhu waa 15 jir wiilkuna waa 14 jir laakiin wiilashan u imaanayo waxa ku jira wiil gabadhiisa gaadgaad ku haayo wuxuu yiri markay u soo fariisteen asxaabtu way sheekaysteen waxa leeyahay niyo waxaan ka rabnaa in caruurtaada u duceyso maanta caruurta u duceey anagana noo duceey wuxuu dhahay yaan u duceeyaa ducada markaan kala qaado ma gabadhan u duceeyaa mise wiilkan u duceeyaa waxa la yiraahdaa marka koobaad gabadha u duceey marka ugu horeyso waa inay gabadha u duceyso okay wuxuu yiri gabadhayda ma u duceynaya ha gabadhayda ma u duceynaya ha gabadhaada u duceynaysa wuxuu yiri gabadhayda waxaan ugu duceynayaa ayadoo 15 jir oo nin qabo ee TikTok ka dhex neekinaysa waxaan ugu duceynayaa in lagu dhex furo arrintu waxay noqotay arrin cajiiba ma loo maleynaynin inay dhacayso yani asagana muu maleynayn in laga duubaayo ma aad wax soo tabiso waxaasi ilaa 20 sano ilaa 50 sano waxay kugu jirayaan social media dhexdeeda wixii waa la wareejinayaa way badanayaan social media ku jirayaan ninka waxa dhacday arrintii waa laga duubay maraa social media la soo dhigay adiga asoo dhowr sano ka soo wareegtay gabadhiisii la aroosay waxa la arkay iyadoo TikTok dhex joogto oo TikTok ka dhex neekinaysa odayga warka waa loo soo bixiyay waa loo keenay waxa la yiri ducadaadii hadda ka hor ma xasuusataa maxay ducada asiga ma ogeyn in laga duubayo indhool oo ahay uma jeedin wixii miiska loo soo saaray waxa la dhahay hadda ka hor waxa dhahday gabadhayda iyadoo 15 jir oo nin qabo oo TikTok ka dhex neekinayso ha lagu dhex furo gabadhaadi maanta TikTok ay ku jirtaa balka warna la dhahay ducadaadi Ilaahay ugu aqbalay sheekadan waxaan ku keenay maanta anigoo TikTok dhex wareegaya waxaan arkay gabar aan ku qiyaasay 15 jir ama 16 jir oo intee soo gashatay funaanad yar oo dhaba oo soo gashatay goono yar ayadana jirkeedu oo wada qaawan yahay TikTok markay soo gashay waxay tiri asxaabay soo dhawaada saaxiibkay canjeerada ii dubooya anigana TikTok maanta asxaabta soo dhaweynaya ma ila arkaysiin soo saaxiibkay canjeerada u dubaayo waa ducadii adeerka uu ku duceeyay ka gaarta 50 sano oo ku aalaya fiidiyowgaasu ma ahan mid dhumaayo sababtoo social media ku dhex jira qof qaadanayso channelkeeda geliyo qof kale qaadanayso channelkeeda geliyo qof kale qaadanayso TikTok-keeda dhigay wuxuu noqonayaa halka fiidiyowbad soo duubto oo adiga qaab darada aad u soo duubtay wuxuu noqonayaa 10 fiidiyow oo dadka channelladooda ku jiraan ma dhumaayo ilaa aad ka gaarto ama ma baaba'ayo ilaa aad ka gaarto 50 sano amba 80 sano aad ka gaarto intaad nooshahay channelkaaga ku jiraya ama qofkii qaadato ku jiraya channelkeeda waxaa marka kuu sheegayaa adoo yar oo qurux badan oo ninku qabo inaad TikTok inta soo dhex istaagtay aad tira ninkayga canjeeradu ii dubaya taas waxay ku tahay wax sharaf darra birina caruurtaada way arkayaan waxaan because ma dhamaanayaan ma sheekaysan karaan oo waxa la dhahayaa hooyada ha TikTok ka dhigi jirtay waxaan ku sheegayaa marka hadda intaad ka gaarto waqtiyaad haysataa jaanis fiicanaad haysataa inaad jaaniskaaga ka faa'iideysato oo waxyaabaha aad ku dhaqmayso aad yani xadid aad u yeesho ama aad kala socdo social media inaad soo gasho wax ceeb maahan waa ka sheekay kartaa waa ka shactaray kartaa waxa doontaa iska duubi kartaa laakiin dharka ha iska xoorin ama dharka ha iska tuurin iska dharkaaga qaado libiso saa doonto u libiso laakiin libiskan yara qaab daran waxaan ka codsanayaa inaa iska dhaaf isticmaalo kuwa TikTok isticmaalo TikTok maalmaha waxa ku soo batay qaawni fara badan ayadoo tinti la soo qaawsado iyadoo jirka la soo qaawiyo iyadoo qof walba meesha u qurux badan ay soo bandhigto meeshaada quruxda badan amba jirkaaga quruxda badan waxa u baahan ninka adiga ku qabo hal video hadii aad soo dhigto waxa fiirsanayso 50 nin oo adiga aadan shaqo ku leeyn 50 nin oo adiga aadan u soo duubin inay fiirsadaan 50 nin oo adiga aadan ugu talagelin inay videogan oo gaaro
aa fiirsanayso nin walbana wuxuu ka bixinayaa reaction qaab daran nin walba oo fiidiyogaaga arko wuxuu ka bixinayaa reaction qaab daran inta reaction qaab daran laga bixi lahaa fiidiyogaaga waxaa kuu fiican inaad fiidiyogaaga xadid u yeesho inaad fiidiyogaaga ka taxadirto markaad social media soo gelinayso waa wax aad u fiican ninkayga canjeere iyo dubay waxay kugu taa qaab daro aad u xanuun badan والله بين مكوش شيء هذا قروح بدن أو لجسوا كوريا أو لجسوا قرحية أو أنت صعدا لجسوا الدلالة إنه بقولن أي هبين كوكوسي حتى ينتهي كفيرسته وواحد قابدر لكن جركاجا هكود دبورنا هذا أذيك يكون أنفعسة والسلامتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.